agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha ayaa maanta dhagax dhigay dhaambiyood uu yeelan doono deegaanka Beerato oo ka tirsan gobolka Daadmadheedh. dhaambiyoodkan oo ay iska kaashanayaan wasaaradda horumarinta biyaha iyo hay'adda Kandhalayd ayaa waxaa halkaasi ugu horreyntii ka hadlay gudoomiyaha tuulada Beerato Cabdulaahi Cali Barre, isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Daadmadheedh Maxamed Colaad Ibraahin, iyo gudoomiyaha gobolka Daadmadheedh Nuur Cismaan Guuleed, kuwaasi oo dhammaantoodba ka marakacay inuu dhaambiyoodkani wax weyn ka tari doono baahida biyood ee deegaanka. maanta farxad bay noo tahay haddii aanu nahay reer Beerato in dhaamkana loo sameeyo. markii dhaamka horta muddadii hore waxaanu lahaan jiray biyo badan, muddo imika 5 sanadooda ayaa biyuhu naga yaraadeen. markii dhaamka la qoday cabirkiisa noo sheegay waxaanu ka fikiray 4 xaaladood in meel aan cid sheeganaanu geeyno balliga oo hadhow taal dhulkeenu waa beeraley oo wada xidhan yahay. waxaanu ka fikiray meel dinguuda inaanu geeyno in aanu waxa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa caanamaal oo bahdaha kula maasho inna la macnamaan waafacadsado. mudane agaasimo guud runtii farxad bay aniga ii tahay inaad maanta adiga waqti kooban joogay xafiiska inaad timaado gobolka Daadmadheedh oo cagaa soo dhigto. agaasime waxaan halkan kugu soo dhaweynaa gobolka Daadmadheedh iyadoo maanta halkan aan dhagax dhigayno ay farxadii noo tahay biyo. wasaaradda hortaad ka socotay waa hay'adda khayraadka biyaha. biyana waa waxa ugu horeeya ee bini'aadanku u baahan yahay. wasaaraddii biyaha yaad ka socotaa waa ta ugu muhiimsan waa noloshii dunida. dadku bini'aadanku ku nool yahayba waa biyo. tiibaan maanta fursadeedii helay halkan oo dhaaman lanoo maalgeliyay ama la maalgeliyay AU-du maalgelisay aan ka dhagax dhigaynaa. aad baan igu soo dhaweynaa. gobolkuna sidiisaba waxa uu u baahan yahay baahidiisa koowaad waa biyo, tiisa labaad waa biyo, tiisa saddexaadna waa biyo. Cabdirasaaq Bashiir Libaax, agaasimaha hay'adda Kandhalayd oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo sida uu u shaqeynayo. iska kulul dartii halkan waxaanu mudane agaasime maanta aan dowladda daarantahay inaanu dhagax dhigno balli loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda oo aanu deegaanka Kandhalayd ka fulinayso. balliga cabirkiisu wuxuu noqon doonaa 80 mitir iyo 80 iyo 2 mitir hoosta ah. waxaanu filaynaa inuu 13,500 oo mitir kuubiga biyaha qabto. marka maanta halkan waxaanu maanta halkan ka dhagax dhigaynaa. hay'adda Kandhalayd waxay ka dhagax dhigaysaa wasaaradda iyo maamulka gobolku dhaam weyn oo maaragtay qaadaya 13,000 oo mitir kuub oo biyo qaadaya oo la dhigayo bac oo ay ka faa'iideysanayaan ilaa 440 qoys. dhaamkaas wuxuu ka koobnaanayaa waxa weeye waxa la marka la qodo qodaalkiisu dhamaado waxa la dhigayaa plastigii biyaha celin jiray baa la dhigayaa. waxa la dhigayaa waxa loo sameeyaa solarkii biyaha laga soo saarayay ee dadka iyo xooluhuba si fudud ay uga faa'iideysanayeen. waxa loo sameeyaa tank biyaha loogu kaydiyo oo dadku si fudud ay uga cabi karaan ayagoo adeegsanaya cadceedda Ilaahay ina siiyay solar. ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Axmed Cabdi Ismaaciil iyo agaasimaha waaxda biyo soo saarka ee wasaaradda horumarinta biyaha Injineer Maxamed Mooge ayaa hadalka iska daba qaatay. waxaan halka u nimay inaanu dhagax dhigno dhaam cusub oo laga dhagax dhigayo ama laga furayo ama laga qodi doono magaalada Beerato, kaasoo ay furin doonto wasaaradda horumarinta biyuhu iyadoo adeegsanaysa shirkado local ah. ay maalgelisay hay'adda Kandhalayd. anagu biyaha waxaan u bixinaa wasaarad ahaan oo qarankeenu u dhigay. waxa weeye biyaha waa bini'aadanka koowaad, waxa ku xiga xoolaha iyo waxaan dhaqanayn iyo noolayaasha inoo nool oo warabaha biyaha loo diidi maayo iyo dacwada iyo sakaarada loo diidi maayo. waa kulleedii ka badin radmay Soomaaliya waxaysa diinteena ku jirta. waxa soo raacay marka beeriba saddexaad ka noqonayo beero waa laga beeranaya. dadka deegaanka waxaan ku boorinayaa waliba Beerato la baxay ee beeraleyda ah dhaamka iyo kuwa kaleba in beera laga sameeyo. horumarka qarankeenu wuxuu ku xidhan yahay xoolaha iyo beeraha labadaas weey. markastoo ceel la qodayo ama dhaam la sameynayo dadku waxa ugu badan niyadooda waxa weyn dadkuna way ka cabayaan xoolaha wayna ka waraabinayna. beeraha weynu lowsanahay. ujeedooyinka aan u sameeyno ceelasha iyo dhaamamka ee wasaaraddu mas'uul ka tahay waxaan beeruna way ku jiraan. in wixii beer la karayana laga beero oo la raaciyo oo dadku wax soo saaraan.
qodobkaasi aad baan u boorinaynaa siyaasadda qaranka ee xukuumaddeena maanta muuse biixi cabdi madaxweyne ka yahay saw soo sheegay gudoomiyuhu waxa weeye 1 iyo 2 iyo 3 waxa uu ah priority-ga ama mudnaanta kuwad waxa la biyaha leh sadeedna culays badan baan saaran hadaan wasaaradii taas markaa waxay keentay wasaaradayada biyuhu inay noqon wasaarad xafiiska inta badan fadhiya gudoomiye shalayna waxaan joogay gabli hoosteeda buuraha dhaadhaceeda bus baan joogay ma markiis wasiirkayga maanta wuxuu joogaa bari oo laascaanoda Muuse Saleebaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Odweyn.